waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ku jiray dagaalkii Tabuuk ayaa nin munaafiqiinta kamid ahaa oo markaa intoodii badnayd way hareena isagu meesha marayay baacayay nabiga iyo asxaabta erayuu ku dhawaaqay isagoo leh ما رأيت مثل هؤلاء مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ما رأيت مثل هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ما نرقني من كان نبي ينت الله سعوته قارك هنقوري وين مركا حاجة على وش النقط قارك هذا الحنوة كبين بدر يقارك فليسن مركا الرجل كل ما nin asxaabta kamid ahaa baa maqlayay oo markuu sidaa u caayay rasuulkii asxaabta Auf ibn Malik baa dhageysanayay ninka kadibna nin uu hadlayo Auf ninkii buu la hadlay wuxuu wallahi munaafiq baat deena waad sheegtay munaafiqna waad tahay buu warkaagana nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam kadibna warkii nabigu gaarsiiyay markii la weydiiyayna wuxuu de kaftan bay ahayd dariiq dheer baa lagu jirayo dariiqaasaan isku dhaafinayna waa madadaaladii ma wuxuu ku keenay haasaawihii iyo madadaaladii dhaxdayadu ku soo waariday uu khaldamay sheekay iska ahayd ma ahayn ay aan kula qastiyay nabi Allah marka waa de kaftankiibu maarat uu khaldamay ilaahay baa quraan soo dajiyay qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iimanikum ilaahay baa wuxuu yiri ma ilaahay iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku dheeldheelaysa waa gaalowdeen waxba cudur daaranin qad kafartum ba'da iimaanikum inta shahaadateen kadib gaalnimo u baxdeen marka aayadu waxay cadeysay ila ninkani wuxuu markaa ilaahay mabuucaayna wuxuu caayay rasuulkii asxaabta marka caayidii rasuulka ayaa waxay noqotay inuu ilaahay caayay subhanahu wa ta'ala halka waxay aayadu ku cadeysay dab iyo dheeldheelba hatta kaftamaya qof waxa dacaydeynay ha iska jeesjeesay sida dadkeenu kana yiraahdaan waa alla kood oo hadalun buu iska tuurtuuraa inuu ku gaaloobayo qof ayaa culimada islaamka ee mufassiriintu sida ay sharxayaan ay ka waramayaan imaam al-Qurtubi rahimahullah markuu sharxaya aayada waxa uu leeyahay la yakhlu an yakuna ma qaluhu min dhalika jiddan hazilan وكيف ما كان كفر أما دبها هاتو أما ديل هاتيه labada jeerba erayga gaalnimada qofku islaamka uu kaga baxaya taas waxa weeyaan qofkii muslimka sheeganayay oo nabiga caaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay caaya oo diinta caaya walow kaftan ba ahaato halkaasa qad kafartum ba'da iimaanikum billahi kii muslimka ahaa cidu doonayaha hada wad gaalowday baa ilaahay waxa yimi qofkii isagu gaalka ahaa muslimiintu ballanka la lahaayeen isagana aayad baa ku soo degtayo ilaahay waa ka jawaabay alla waxa uu wa innakathu ba'da ayman wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ونمانكي بلانتي عهدك لها هدي بلانتي جبيان وطعنوا في دينكم دينتي اننا طعني كسميان الدراع الهي بوعاي رسولك دينتا لا دغالمو الهي وخلي لا دغالما marka waa madaxdii gaalada iimaan iyo aymaan toona male iimaan malaha aymaan iyo ballanna malaha ilaa intay ka joogsanayaan ballankoodii wuu buray markaana aayadaas waxa cadeysay cidii aqad iyo heshiis la lahaa ama magan ba ahaa haday ilaahay rasuulkii caayaan iyagana magantoodii way jirtay magantoodii martidoodii ahdigoodii waa buray waayo shaygii al-khat al-ahmar khadkii casaayl lama taabtaanka ahaa iyo wixii markaa qadaasadii iyo hufnaanta lahaa kol haday dhowri waayeen oo ay ku tunteen si caadi lahay aayada wuxuu u sheegay inay tahay arintaasi ballantiyo jabtay waxa markaas sidaa ku fasiraya culimada tafsiirka ibn kathiir oo kale markuu fasiraya wada'anu fi diinikum diintiin haday duraan
waxa uu ku fasirayaa cidda rasuulka cayda diinta cayda ilaahay cayda ayuu ku fasirayaa dacnigaas waqtigii nabi maxamed joogay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee dee dad baa dhacdhacan iyo dhataqlanimadan iyo afxumadani ay ka dhici jirtay noocyo kala duwan leh marka haddii aynu iyagana qisaskoodii soo qaadano 5 qiso aynu soo qaadan doonaa qisada horeysa waa qisadii ninkii la oran jiray Kacb ibn al-Ashraf nin kibray buu ahaayo carabta kamid ah mar walba wax kibra oo ilaahay rasuulka ka hor yimaada lama waayo ninka isaga ahay nabigu afka ka dhigi waayay calayhi salaatu wasalaam aad buu caay jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabtii uu la hadlayo wuxuu warnaa ninka ah saa lagu sii eegan kari ma ilaahay rasuulka caaye kuma u baxaya nin ku munaasib ahaa geesi ahaa fariid ahaa farsamo badnaa Muhammad ibn Maslama leeyay Muhammad ibn Maslama la oran jiray asxaabiga ayaa yiri aniga miyaan soo dilaa ha aniga igu duceey buurka aniga ku quusanaya kadibna laakiin daa wuxuu waxaan u baahanahay waxyaabahan ku marmarsoodo waxaad ii ogolaataa buu in adiga wax ka sheego si aan isaga kalsooni uga kasban karo waa farsamo oo macnaha aan dee ku yara duri karo wax ka sheegi karo waaye ka socod waa ku fasaxay kala day xidaaraysi iyo farsamo u tahay ninkii uu sii socod wala istiqaanan Muhammad ibn Maslama ee ninka gaalka Kacb ibn al-Ashraf looran jirayna way istiqaaneen ninkii uu tagay kadibna wuxuu wanayo ninkii oday ninkii aanu la joognay wuxuu buna weydiinaya sadaqa iyo wax anagina waxba ma hayno marka waxaan kuugu imi bal inaad xoogaa awr ama 2 awr oo raashina ama hayso uu qoslayo wuxuu ma sidaas ay u dhacday waan ogahay buu ka waliba uu disi cuslayn doonaa buu way ka sii daray buu waliba bay horta de arrinkiisaanu yara eegaynaayo de ilaa intuu soo oodmayo waanu iskala sii wadaynaa waxba ka degdegi meynee barta teenan inoo dhamee de way rahan baan ka doonayaa buu kalsooni maxaan rahan kaaga dhignaa buu de qaar dumar ay keen buu waa ninkii breewi dumarkiina de qaar rahan iga dhig harmeesha ninkii carab u fiicnaaba tahay ceeb bay kugu tahay islaam buu ayuu rahan u haystaa taay naga daa way hadaba caruurta keen buu qaar caruura keen labada awre raashinka ah aan rahan u sii haysto taasina waa de caruurta ceeb ku tahay buu waxa la oran doonaa berrito waa ilmihii loo rahmay labada awre raashinka ah marka taanay naga daa maxaad hadaa rahan ka dhigay hub baan ku keenay buu hub kaasa wanaagsan ma hubka ay keen buu asilaax goormaynu ballanaayo caawa hayno haatay caawadii buu soo guura galay isagoo wata nin kale oo si uu kalsoonidiisa u sii hagaajiyo si uu kalsoonaado ay isaga xagga hooyo kan la doonayo in la dilo xagga hooyo ay ka walaalayeen Abu Naila la oranay iyo 2 nin oo kale oo inay saaxiibo yihiin oo muujinayo hubkan uu u muujinayo inuu rahan uga dhigayaana waa hubkii ay ku dilayeen way soo socdeen habeennimadii baa qalkii ku garaaco waa kuma waa Muhammad ibn Maslam ooridiisii baa ninkan gaalka la hadasho waxay tiri war waqtigan lama baxee iska joog wuxuu ma waa ninkii odayga ahaa mustaqaanay yimid Muhammad ibn Maslam la oran jiro deegaasigu hadda ayo kale uu iska daadega wala hawla tumaatiye gobanimo ma ahayna de aqalkuun hoosta ka soo xidhata wallahi codkaaga geeri baan ka arkayaa bay gabar cajiiba bay haydo codkaagaas geeri baa iga muuqata sidii uu ku daadagayo de Muhammadna khad buu soo dajiyay qoladan la socoto wuxuu ninka saasan sameynaya marka aan ku dhaga uun khaarajiye ninkii oo aad isu soo cadareeyay oo aad u soo kankamayo udgoon oo markaasuu Muhammad ku warday aad baabad udgoon tahay bal madaxaaga aan yara ursado Allah maxaa cadar ka soo uraya rasuul de carabtii u cajaayibsanayd baan qabaayo ooridii carab ugu cajaayibsanayd ugu cadar badnayd baan qabaa sidaa daraadeed baan udgoonkan u helay bal ursi madaxo markuu ku dhagay mar labaad haddana uu aad u qabtay madaxiisa intuu saa ursaday ayay nimankii kale ag taagnaan hubkii looga dhigayay rahan uu yahay ayaa dhakada lagu jaray warkiisi wuu dhamaaday saasay nabiga ugu bushaareeyeen calayhi salaatu wasalaam marka ninka de ciqaabtiisii nabigu wuxuu ka dhigay in uu wadada ka duwo ama ummadda ka hor qaado qisada kale waxa warinaya Bara ibn Aazib iyana waa saxiix
nin baa jira yahuudda ka mid ahaa oo la odhan jiray abu raafic baa la odhan jiray alyahuudi ninkaasi ilaahay buu caayi jiray si gaarana rasuulku u sii caayi jiray calayhi salaatu wasalaam dacaayada afxumada ceebaynta waxaas u wadi jiray marka sidoo kale koox ansaarta ka mid ah ayuu nebigu u diray oo uu hogaaminayay asxaabigii la odhan jiray cabdilaahi ibnu catiik way socdeenoo goor fiida ayay hortaageen qalcad weyn buu ku lahaa xijaas dhexdeeda gurigiisii bay hortaageen fiidkii nimankii kale markaa kooxda ahay la socday dib u joogsada buu isaga intuu mara yara hagoogtay markii xoolaha lagu xareeyay qalcadda weyn ee dadkii ay sii galayeen ayuu albaabka yara hagoogtay sidii wax kaajayoo kale kii geedhkiibarka ama waashmaankiiba la hadlay wuxuu ninka qofka halkaa fadhiyo albaabka waan xidhayaa dhaqso u soo dhaaf wuxuu moodayaa dadkii guriga isagiina fursadii buu ka faa'iideysto uu soo galay meel buu isku yara laabay oo ninkii waashmaanka ahaa markuu meelihii wada xidhxidhay ayuu qori yar suray furayaashii buu qaatay kolba albaab buu ku eegay wuu furay dhowr albaab buu furo kor buu sii baxay albaab walbana hoostu ka soo xidhaya waqtiga uu galayaana waa markii la kala seexday markii uu isri meeshii ninkii hurday baad gaadhay la doondoonaya abu raafic la odhanaya ayaa wuxuu war abu raafic war waa kuma buuri ka meesha soo galay aqalkuna waa madow oo dee waa nin isqarinaya marka horeba halkii codkiisu uu ka baxay buu kula hagaagay oo seef buu ku dhuftay mar labaad mar saddexaad adigu uu ka bogtay markuu khaarajiyey buu daadegay oo hoos buu dhaadhacay cajiiba buu ahaayoo adigu markii salaamadii ugu horeeyay uu maraya cabdilaahi ayuu meel ka dhaco lugtu ka jabay iyaba waa cajaa'ib waa imtixaan kale haddana isagoo lugtaa ka jaban ayaa cumaamadiisii buu qaaday oo uu ku duubay ilaa waa nin hadaf buu socdaa damqasho ma leh ka nebiga caayunbaaba damqaye cagtiisan jabtayba may damqayn uu ku duuduuba wuxuu wallaahi ilaa ninkaa geeridiisa la muujiyo oo la sheego kaba tegi maayo halka markii waagu soo baryayey ayaa sidii carabta dhaqankeedu ahaa nacyi waxa la yidhaha bay samayn jireen ninbaa dhawaaqayo ogeysiiska geeridu bixinaya yanca bimowti abi raafic ninkii abi raafic geeridiisiiba ogeysiis xaafadda iyo deegaanka ayuu sida salaada loo daakiro kale loo adaamo ayuu ku yeedhiyey markiibu kooxdiisii kale u yeedhayoo halkiibaa la tukubiyeyoo sidii baa nebiga loogu tegay calayhi salaatu wasalaam markii dilkiisii ay soo hubsadeen ee ugu bushaareeyeen rasuulka nebigu wuxuu ihi bal cagtaada ay tusi saasunbuu u masaxay khalaas waa iyadoon weligeedba waxbaba taabaninba waa min mucjizaatihi sala allahu calayhi wasalam abaalgudna ninkaa way u ahayd marka tallaabadaasina miduu rasuulku qaaday bay ahayd si looga nasto ninkaa gaalka ahaa ee caayay nebiga calayhi salaatu wasalaam qisada saddexaad waxay ahayd nin asxaabta ka mida baa jira oo isaguna indhala-a ninkaas wuxuu hoos joogtay oo xaas u ahayd addoonuu lahaa laba inanoo aad u qurux badan bay u dhashay oo isagu uu ku tilmaamay inay la mid ahaayeen laba lu'lu'o jawhartoo kale inay sida jawharta u caddaayeen nebiguunbay caayi jirtay habartaa addoontii wuu la hadlaa wuxuu idhaahdaa ka daa rasuulka ha caayin markuu muddo ku celcelinayay habeenkii dambe ayay cayday naahoy ka daa naa nebiga ha caayin naa nebiga agtayda ha ku caayin markii ay deyn weyday buu golxab ama tooridan weyn halkan raggu gashadaan ayuu soo qaatay oo dabeetana markay jiifsatay buu ku ruqaansaday laba u kala jaray ciyaalkii mid ka mida baa qaylqayliyo dhiiggeedii buu dhex galay subaxdiiba dhinacaasu isaga daqamo uu ka tegey ka luuday subaxdii baa la soo sheegay halkan in gabadh lagu dilay ilmaheedii yaraana uu ag joogo wada dhiiga nebigu asxaabtii buu aada u abhiyey oo baariyey oo xaqa uu ku leeya u sheegay oo ninkii dilkaa geystay soo bax ninkii indhaha lahaa uu soo kacayo nebigu xaggiisa u soo hangabsaday markaasuu yidhi tusoo waa la hor fadhiisiiyey wuxuu horta iga dhegaysa hadalkanoo gabadhan iyada ah aniga wax dhibinama dhex marin buui si gaara shakhsiyadayda way jeclayd buui laba inanoo noocaa iyo noocaa u qurux badanna way ii lahayd laakiin afkunbay kaa dhigi weyday way ku caayi jirtay in badan markii aan abriyey deyn weyday anigaa sidaa u khaarajiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggeedii hadur buu ka dhigay oo waxau idhi alaa ishhadu anna damaha hadar
waxa ogaataan oo markhaati ka noqotaan dhiigeeduna hadur yahay taasina qiso dhacday oo saddexaad bay ahayd oo nabigu horkacay calayhi salaatu wasalaam qisada afraad cali ibn abi aalib baa warinaya gabadh yahuudiyada baa jirto iyaduna nabiga caay jirto aad iyo aad u duri jirtay nin muslina cunaha ku dhago u baktiyay iyadana wuxuu ogaada taana in dhiigeedu hadur yahay qisada shanaad waxay ahayd gabadh baa nabiga cayday calayhi salaatu wasalaam kamid ahayd bulshadii waqtigaa joogtay nabigu markaa wuxuu war gabadhaas way afxuntaa ayaa aamusiinaya dee waa ciddii ciqaabta ka soo fulin lahayd unbuu isagu wakiisho u diraya waxaa baxay cumayr ibnu cadi asxaabiga la odhan jiray sidii buu iyadana ku khaarajiyey nebigu waxa uu yidhi laa yantatixu fiiha can zaani isu hirdii maayaan laba riyaad laba qabiilo iyo laba cidoo ku wada hadlaysaa taa dhiigeeda ma jiro ogaada inay hadur tahay hadaynu aayaadkii aragnayno xaadiisii aragnay qodobka saddexaad aynu usii gudbi lahayn waxa weeye ijmaacu lumma ummadda islaamka weliba salafkoodii hore ee qowlkoodu miisaanka lahaa ee markay wax isku waafaqaan aan laga daba tegi jirin iyagu maxay ka yidhaahdeen masaladan waxa ay isku waafaqeen calaa kufri wa qatli man tanaqasa min annabiyi sala allahu calayhi wasalam inuu gaaloobay dilna yeeshay qofka hoos u dhiga ee xaqira ee caaya nabi maxamed calayhi salaatu waxa se xusid mudan runtii dee qofkii marka uu arrintan oo kale ku dhaco waa xeer ciqaabeed baa la marinayaa xeer ciqaabeedkaasna dee cidda mas-uuliinta ah ee xilka haysa iyo garsoorku waa in lagu soo oogo wixiina lagu qaado kiiska ah oo markaasaa loogu fuliyo sidaasuu waxaan ku joogsan karayaa haddii kale wuxuu noqonayaa wax runtii iska sii socdo ee dadku ay iska fudaydsadaan